Anderson Cooper waa qofka ugu caansan dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda. Waxa uu ka shaqeynayaa sidii xabsi ku yaal dalka Itoobiya loogu wareejin lahaa. Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo iftiimiyay dhaqamada guracan ee ninkani uu ka wado Somaliland. Jonathan Starr, asaasaha xarunta Abaarso, suxufiga khaniiska ah ee Anderson Cooper, iyo baadariyada Pastor Joy Isa oo ahayd haweeneydii bixisay amarkii ciidamada booliisku ay ku xireen Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa galabta u dhoofay magaalada Addis Ababa si dowladda Itoobiya ay ugala hadlaan suurtagalnimada in maxkamadda rayidka ee dowladda federaalku ay ka garnaqdo kiiska loo haysto Coldoon. Anderson Cooper ayaa soo jeediyay in Cabdimaalik Muuse Coldoon lagu xiro xabsi adag oo 12 sano qorraxda looga qarin karo. Waxa uu qabaa in dabarka katiinadaha Somaliland uu jilicsan yahay oo xataa haddii xukun waqti dheer ah garka loo geliyo dhaqso la soo furdaamin doono. Waxa uu muuqdaa nin ku soo waaya arkay xarigii uu sanadka hor u maleegay Samafale Coldoon markaasoo maxkamadda Somaliland ay xukun 3 sano iyo bar garka u gelisay, balse la sii daayay markii uu xabsiga ku qaatay 1 sano iyo 2 bilood maadaama hay'adaha xuquuqul insaanka caalamka iyo saxaafadda ay culays saareen xukuumadda Muuse Biixi Cabdi in nidaamka qabaliga uu ku xoog badan yahay Somaliland oo odayaasha dhaqanku ay dadaal gelinayaan in la soo daayo Coldoon iyo inuu yahay qof aan qarsoomi karin oo bulshada ay u danaaninayso ayaa keentay in la qorsheeyo in samafalahan lagu xiro dalka Itoobiya. Anderson Cooper waa wariye Mareykan ah. Sanadkii 1995 ayuu ka shaqo bilaabay warbaahinta ABC News. 8 sano kadib waxa uu dallacay telefishinka CNN oo laga siiyay barnaamijkiisa wararka ee Anderson Cooper 360 degree. Isagoo 45 sano jir ah ayuu sanadkii 2012 ku dhawaaqay khaniisnimadiisa, homosexuality, iyo in xumaanta qowmuluudnimadu ay u tahay hab nololeed uu ku xasilo. Waxa uu u dhaqdhaqaaqaa dadka guracan ee sida liita isugu galmooda. Waxa uu guursaday nin lamoodka Benjamin Mizani oo marar badan sheegay inuu ku faraxsan yahay la noolaanshihiisa. Dowladaha Sacuudiga iyo Kuwait ayaa dalkooda ka mamnuucay, waxaana hadda ka hor la joojiyay safar dalxiis oo uu ku tagi lahaa magaalada Jidda. Somaliland ayuu tagay 2017 kadib casuumaad uu ka helay Jonathan Starr, asaasaha xarunta Abaarso. Xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa si miisaan leh u soo dhaweysay, iyadoo wasiirkii hore ee warfaafinta Somaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani uu ku dooday inuu Somaliland caalamka barayo maadaama uu yahay suxufi caan ah. Anderson Cooper sanadkii 1992 waxa uu ku fikiray inuu ku biiro ciidamada militariga Mareykanka, laakiin hoggaanka ciidanka Mareykanka ayuu kala kulmay diidmo qayaxan, kuwaasoo ku dhawaaqay in khaniisnimadu ay tahay mid aan la jaan qaadi karin adeega militariga Mareykanka. Xilligaas Anderson Cooper waxa uu doonayay inuu safro, balse khaniisnimadu waxay sharci darro ka ahayd wadamada dunida badankooda. Dabayaaqadii 80meeyadii iyo horaantii 90meeyadii, 2 gobol oo Mareykanka ka mid ah ayaa ogolaaday in lamaanayaasha isku jinsiga ahi ay iska diiwaan geliyaan iskaashiga gudaha, laakiin looma ogolaan inay isguursadaan. Waana sababta keentay inuu banaanka keeno dhaqankiisa guracan, taasoo uu u galay olole xoogan. Sanadkii 2016 Anderson Cooper waxa uu noqday ninkii ugu horeeyay ee khaniisa oo lagu aaminay dhexdhexaadinta doodda madaxweynaha, markaasoo aad loo dhaleeceeyay siyaasadda dadka Mareykanka ee madaxweyne Trump. Tan iyo markii la xiray Samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon, fadeexo ayaa baraha bulshada ku qabsatay baadariyada Pastor Joy Isa, taasoo keentay inay dalka iskaga cararto. Waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysaa sidii Cabdimaalik Muuse Coldoon loogu xiri lahaa xabsi shisheeye oo ay aaminsan tahay inuu sharcigiisu adag yahay.